السلام عليكم. حلقتنا وحلقتي أفراد ميرع بودكاست يعني أوجه اللي بوجي عسرية وقري آدم سهن يوان كحلقة ما أنتو حاوي معناها قاضو وقفك كتك نين أيا مالما كمدا وهو أركي نين كلا أوريمي أو جديد ستة أما أور ستة أورتا يا مركب على سارين جري نيفك جيلة ay Soomaalida hore si ay wada garanaysan ku wada guuri jireen xoolaha weeraran jireen neef awr ah ama neef rati aan dhahay u saaran yahay miska u saaranta kadib ayuu wuxuu weydiiyay meesha maxaa ku saaran masaga ayaana neefka u saarnay wuxuu yiri masaga ayaa ii saaran u yiri labada dhinac ee awrka ama ratiga labadiisa dhinac waxa kala saarnaayeen laba juwaan oo kala duwan oo isku miisaaman markaasuu yiri kan maxaa kugu jiro kan wuxuu yiri waxa ugu jira loorkan arkaysid masagada ama raashinka ayaa ugu jira loorka kalena waa loor ciid ah oo ku xiran meesha yiri suu weydii sababta loorka ciid meesha ugu xiran wuxuu yiri maxaa sabab in loorkan ciid halkan ku xiran wuxuu ugu jawaabay loorkan ciid waxaan doonayaa inuu miisaamo ama uu isku dheelitiro ama isu dheelitiro u noqdo loorkan kale dhinaca kala jira hadii kala hadii loor maran hal loor maran lama saari karo waxay sameeyaan inta shay dhinac mariyaan ama raashinka dhinac qayb mariyaan dhinaca kalena waxay mariyaan shayki kale halkaasna waxa labadii shay la isku xiraa awrka waxa la isku xiraa xarig ayaa waxa dusha laga saaraa awrka oo lagu xiraa dabcan wuxuu yiri dhinaca kale waxa saaran dhinacan raashina saaran dhinaca kalena waxa saaran loor ciid loorka ciid waxaan doonayaa loorkan raashinka inuu miisaamo saasana meesha saaran suu yiri ka waran hadii loorkan ciid bedelkii aad meesha saari lahayd ee culays aadan u baahnayn aad qaadi lahayd ka waran hadii masagadan loorkan kale inta ku kala jirtid oo laba u kala jirtid xargan aasa ugu kala xirtay labada dhinac wuxuu yiri tala fiican way ma sha Allah uu ka qaatay taladii sidii sameeyay loorka ku kala jartay labada loor ku kala jiray masagadii ama cunadii ama raashinka dabcan kadibna ratigiisu dhaqaajistay markuu ratiga dhaqaajisto amba baxay yuunika wuxuu ku soo celiyay su'aal wuxuu yiri adiga talada siinay ana ila talinaahay labadan keeta ma oday dhaqameed baa tahay nin wax garad oo garaad amiya tahay wabar ah ama wadaad caalim ah ayaa tahay diinta yaqaano faqiih oo wadaad baa tahay labadaas baana wax gal u aqaanay labadaas ku maxtooy markaasuu yiri labadii midna miyuu yiri ninka la taliyay wuxuu ku jawaabay labada midna mihi soo ugu jawaab alla ku doori ma adigoon labada midna ahayn baad aniga wax ii sheegtay soo sidii soo ku ceshto ciidiis intuu soo celi loorka ciid ku beegay ayo loorka kalena dhinac raashinka isku geysay isku socdaan qof aan labada midna ahayn waxba iima sheegi karay cashirka koowaad ee qisadan isdhuldhig ciidamo dhan oo nabi Suleymaan wati waxa joojiyay quraanyo yar sidoo kale bulshada dhan waxa sabab u noqotay hanuunkooda waxa sabab u noqday shimbirka ee dhahan guguulaha ama hudhudka ee dhahan waa garanayna si fiican aan wada garanayna qisada reesabo boqortooyada dhamaal ee reesabo in ay hanuunkooda sabab u ahayd ama uu sabab u ahaa shimbirkaas hudhudka ee yarka ah ayaa sabab u ahaa nabi Suleymaan wuxuu ku sheeganaa isdhuldhigida wuxuu ahaa nabiga isdhuldhigaya quraanyada la hadlay u jawaabay hadalkeeda dhageysanay asagoo boqortooyadiis ay ka talinaysay been al-mashriq wal gharb ay ka talinaysay bari ilaa galbeed dhinaca kasta daafaha caalamka ay ka talinaysay asagoo oo dabaylaha isticmaali jiray awood ahaan u isticmaali jiray danihiisa ku fushan jiray jinka isticmaali jiray asagoo isticmaali jiray awoodda insiga jinniga dabaylaha waxaas oo dhan loo sakhiray haddana isdhuldhigii wuxuu gaarsiiyay inuu la hadlo abuurta alla kooda ugu hooseeyana u aragna inay u hooseeyaan quraanyo inuu la hadlo shimbir inuu la hadlo ay isdhuldhigiisa gaarsiiyay ashirka labaad
qof liita oo macna saas oo sheeganeen leh hadduu xaq sheego wuxuu noqdaa qof maamuus leh sidoo kale qof maamuus leh qof weyn ah macna leh sheegan hadduu xaqa qariyo ama uu wax baadil ah sheego uu maamuus beela habeenada kamid ah Abu Hurayra radiyallahu anhu asagoo hooyday oo firaashkiisa ama gogashiisa u hooyday oo jiftay oo gamay ayaa waxa u yimid sheedaan baa u yimid markaasuu qabtay dhab buu siiyey suu sheedaanka cawday oo calaacalo wuxuu yiri waan gaajeysnahay ciyaalna waan leeyahay gaajo darana way haysaa ee isii daawiyay ilaahan kugu dheershay sheedaanku sii daayay subax nabiga ayuu la kulmay nabiga ayuu arkay Abu Hurayra markaasuu nabigu wuxuu yiri qisada ugu sheekeysay oo dhacday markaasuu nabigu wuxuu yiri ninka been buu ku sheegay sheedaanka been buu ku sheegay wuuna soo laaban doonaa habeenkii xigtuu saaxday haddana isla sidii wax u dhaceen haddana nabiga ayuu subax u sheegay sheedaanka waa ugu soo laabtay nabi allow waan qabtay haddana baahidii ii sheegtay waan sii daayay suu nabigu wuxuu ku yiri sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku yiri been buu ku sheegay haddana wuu soo laaban doonaa habeenkii saddexaad ayuu sheedaanka soo laabtay markaasuu Abu Hurayra habeenkii saddexaad qabtay dhab buu siiyey suu tabti u cawday suu wuxuu u cawday sidii uu marka hore kale u cawday suu wuxuu ku yiri wallaan ku sii deynay inuu yiri markaan nabiga ayaa ii sheegay yiri laba goor oo hore inaad been ii sheegayso weena dhacdo yiri sidii dhacday markaasuu yiri caawa waa sii deynay yiri cilmi baan ku bari mar walba habeen walba oo sariirta u hooyato yiri gurigaaga u hooyato sariirta aad gasho ood fuushood kama ismaagto ayad kursiga akhri yiri sheedaan ismaarka doontaan ilaa subaxina waa lagu ilaalin wuu sii daayay subaxina nabi maxamed ayuu la kulmay qisadii u sheegay iyo asaga sheedaan wax xaala kala qabsaday inuu u sheegay inuu wax baraay nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku yiri صدقك وهو كذوب رمبك وشاقو يرحلة بين لو وين ولي وهنين بين لو شادان وبين لو لكن حالة رمبو شاق مركا حقا دينع والبوكي مادو مال والبوكي مادو قف لي تكي مايا قف سريكي مايا مر والبو حق مركا دو وناك كو شاقو عد وقول لي دي وناك كو شاقتو واتك قادم عشرة saddexaad buug wuxuu ciwaan uga dhigay dadku waxay wax ku yihiin garaadkooda ee waxba kuma aha jirkooda wuxuuna sheegay qisada tan Luqmaan al-Hakim wuxuu ahaa nin xakiim ah nin cilmi badan nin wuxuu ahaa garaad badan garasho badan nin murti lagu sheego ahaa saasay taan wuxuu ahaa nin nuubi ah wuxuu ahaa nin Suudaanis ah oo nuubi ah nin madow oo nuubi ah ayuu ahaa Luqmaan al-Hakim wuxuu ahaa ama Luqmaanka murtiilaha wuxuu ahaa nin adoon ah ama la leeyahay ayuu ahaa maalmaha kamid ah waxaa dhacday qisada tan sayidka Luqmaanka murtiilaha Luqmaan al-Hakim sayidkiisa ayaa maalmaha kamid ah nin kale wuxuu la dheelay ciyaar oo sharatan ah ciyaartu ayuu ka badiyay kadibna wuxuu ku xirtay shardiyadan aad u adag ayuu ku xirtay shardiyadaas oo ku adkaatay maxaa la dhihi jiray sayidkii in uu fuliyo haddaba shardiga ugu horeeya uu ku xujeysto wuxuu ku yiri laac ama cab webiga biyaha labadiisa goonyood u dhaxay ama labada jijir ee webiga biyaha u dhaxeeyo cab buu yiri laac ama il ka soo rid adoonka ama inuu dhag ka jaro ama inuu sanka ka gooyo haddii intaas oo dhan uu sameyn karin wuxuu kula shartamay oo sharad kula galay wuxuu kula sharadtamay inuu hantidiisa oo idil uu ku soo wareejiyo ninkii lahaa ee sayidka Luqmaan ayaa ninkii ka adkaad wuxuu ku yiri bal ilaa bari baliisu isagoo gabalku uu sii dhacay oo gabalku dumay oo meel cilla fadhiyo oo fooraro oo uu fakarayo oo wuxuu sameyn lahaa aad ugu walaacsan ayaa wuxuu la kulmay Luqmaan markaasuu weydiiyey maxaa ku helay mudan uu yiri markaasuu ugu waramay uu uga warbixiyay wixii helay markaasuu ku yiri xasil mudan aniga ka furanayo yiri
aniga ayaa kaa furan ayuu yiri sharadkaas ku cusleeyay. Waxaa ku tiraahdaa biyahan waa cabayaa laakiin biyaha labada goonyood u dhaxeeya waa cabayaa. Waxaad ii xirtaa labada goonyood waxa biyaha wabiga dhinacaas dhinaca kale iga xir kadib waa cabaya. Soo ula noqday ninkii ku adkaaday ee sharadka xirtay ayuu ula noqday sayidkii. Wuxuu ku yiri biyaha waa cabayaa labada dhinac. Labada goonyood biyaha u dhaxeeya in la cabo ma hartaada mise biyaha socdo yiri. Waxaan doonayaa biyaha labada goonyood u dhaxeeya in la cabo. Haddaba waan cabiyay. Wuxuu ku yiri iga xir biyaha socdo ee wabiga si aan labada goonyood firaaq ugu helo oo cabo biyaha aan cabayay iga dhex qasmin biyaha kale. Soo ku yiri waxa macquul ma soo yiri wax aan macquul ahayn oo aad ba samayn karin oo awooddaada ka baxsan maxaad sharadkan u soo gelisay. Waayahay sida ayuu nooga fakaday sayidkii Luqmaan sharadkankii adkaa ee uu la galay ninkii ay tartamayeen. Casharka afraad wuxuu ku leeyahay murtida Ilaahay waxaa ka mid ah dadka baahiyahooda inuu dadka u geliyay si kasto oo qofka ugu suntan yahay mushkilad xalinta. Si kasto oo qofka ugu suntan yahay mushkilad xalinta mar buu baahanaa asna in la xalliyo mushkilad ku adkaatay xal ugu waay. Waxaa jira nin kale oo asna Carab oo dhan ee ku sheegtay ku astaysay in uu yahay nin caqli badan, nin daahi ah, daahiyatul Carab, nin aad u caqli badan, mushkilad xalintan aad ugu fiican. ninka ka dadka martida way u imaan jireen oo marti soori jiray, mushkiladoodu xallin jiray, kadibna waa kasaas uga tagi jiray. maalmihiisa ka mid ah ayaa waxa u yimaadeen 3 nin oo walaala waxayna u keeneen qadiyadan. waxay dhaheen arrintan aniyoon haysato waxaan nahay saddexdan qof ama 3 nin ee walaalaha ah. Labadaanada waxaan nahay rag, nin naga mid ahna waa labada xubnood bale. Hadba waxaan doonaynaa inaan ogaano ama inaan noo xaliso ninka labeebka xalkiisa inaan noo xaliso. ma waxaan siinaa dheeftii iyo dhaxalka ragga ma siinaa mise dheeftii dhaxalka dumarka ayaan siinaa. ninkii xalinta mushkiladda way ku adkaatay, aad buu la rafaaday. wuxuu yiri ii sugo maalin, way u sugeen. haddana wuxuu yiri bil ii sugo, way u sugeen. maalmaha ka mid ah asagoo gurigiisa iska joogo ayaa waxa u imaaday qaadimadiis. markaas waxay ku tiri dadka martida way kugu daaheen muddo dheer oo bil dhan had way ku joogaa ee ma xalisid oo dirtid. suu ku yiri arrintoodii dadkan waa wali oo xallin waay. say ku tiri bal ii sheeg arrinta ila wadaag aniga. suu ku yiri ma arrin aniga xallin waay intuu qosle baad adiga xallin kartaa. say ku tiri Allah subhanahu wa ta'ala murtidiisa khalqigiisa ama abuurtiisa kuwooda ugu liitu geliyay uu ku abuuray bal ii sheeg mushkiladii la wadaag. wuxuu yiri mushkiladda noocaan ay u jirtaa 3 nin waa walaalo, mid ka mid ah waa labeeb, waana la xalin lahayaa arrintu. waxay ku tiri waxaas wax adag miyaabo. waxa ugu jawaabtaa sidan ninka maxaa la dhihi jiray ninka labeebka ah haddii siduu ragga u kaadshi karo oo uu istaag ka kaadshi karo wuxuu qaadanayaa dhaxalka ragga. hadduusan ka kaadshi karinna wuxuu qaadanayaa dhaxalka dumar. sidii ku xaliyay ninkii maxaa la dhihi jiray sidii ayuu ninkii ku xaliyay mushkiladii una la wadaagay martidina ku diray. intaan ayuu ku eegayay muuqaalkeena maanta ee ahaa xalqadii 4aad ee Meerac Podcast. inta ku kulmi doona muuqaal xiga. saayo mac salaama nabadgelyo.